إلهي قدقين با دمجين هدافو وحي كان هاينا قرنسيو وحي وناقانا هاينا قطبالو iyadoo sidaas waxaan doonayaa arrin yar inaan maanta ka hadlo way garanaysaa anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Cabdiqaadir waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye waxaan ahay taageerayaashiisii ugu waaweynaa weligoodba ku soo jiray maanta anigoo idinka cudur daaranaya oo cafisidii weydiisanaya waxaan ka hadlayaa arrin yar oo xasaasi ah وحيالي أنا هروب هذا الجري عاديات وقدوان وحن سيسلاي هاي وحكوه ناجي وحكوه هجاجي وحيدي توسين بلا إنه قصة صعطة ما خطر إنه قصة صعطة كجهرتك وحن حمانك وضوح أما أن عدكو كلك حين يو أما أن دولة وحقود ما يو ما حاشاك الله وناقوم ما كوضع وناقا marka arinta waxaan doonayaa ka bilaabo waanigi anigu halkan maalin dhaweyto laba cisho ka hortay waan ka tagay waxaan qabtay burcano waxaan u sii dhaafay tuulo reer ku degan yihiin oo la yiraahdo Cali Ciise oo iskuul laga dhisay secondary-ga la isugu wada tagay qaaraan reer lagu dhisay ilaahay ma hadina dawladdu taageero ka geysatay waa ugu mahadnaqaynaa iskuulkaasi si fiican buu tisqaaday waxaan ku faraxsanahay macalinka ugu weynay meesha ka muqaddimkee wax ka dhigay iskuulkaasi ku xidanya wuxuu ka yimi awdal buu ka yimi jaamacadda Camuud buu ka baxay ilaa hawd buu socday sidoo walaalihii wuxuu ku soo ugu faa'iideeyo iskuulkaasi markaa wuu hagaagi doonaa uu si fiican buu noqon doonaa halka markii la furayay iskuulka furayay waxa isugu yimid akhyaar badan oo beesha ka tirsan aniga beeshayda aadna noogu soo dhaweeyay meesha waa lagu shiray waa la isku wareystay waxba la isku weydiiyay arrimahan maanta siyaasadda dalka ka socota ee waliba aad u saamaysa beesha si fiican baa looga wada hadlay oo looga dooday wax la iska weydiiyay haddaba aniga gaar ahaan canaan aad iyo aad u weyn oo laga qabo kulmiye iyo dawladdan maanta Axmed Maxamuud Siilaani ka madaxda yahay cabasho weyn oo laga tirsanayo baa anigii laygula dhacay xanaashaada aad bay u kululayd laakiin soo iska adkaystay waxaan u malaynayaa dadku isaga kay wanaagsan yahay oo nin kale hadduu ahaa la mala waxa ay wax ka daran baa lagu sameyn lahaa haddaba anigoo taa ka warramaya bal cabashada iyo cadhada reerka ka muuqata anigoo ka warramaya doonayeen in aanay dee taraarin oo aanay meesha ka bixin oo aanay meel shishay naga gaadhin jecella xukuumaddu inay saan u dhageysato wax ka qabato xoogaa yaroo bal background baan ka sheekeynaya horta xisbiga kulmiye markii la sameeyay beeshayada idinkoo iga raallaa waan ku celcelinayaaye waxaa ka galay aniga in adeertay Maryan Cabdulle inuu Allah naxariisto uu dhinto maas loo oran jiro reer Sheffield intaan ogahay reerka saddexda qof aniga markaan leeyahay waxaan u jeedaa reer Cabdiqaadir family-ga reer Cabdiqaadir oo dhami waa igula jireen Maryan Cabdulle inanka maas baa kaga jiray ururka anigu halkan waxaan imi 2003 doorashadii baan imi markii aan sidii beesha ka olole aad baan layga soo horjeestay cidii raacda waa adkaatay cidii footaysaa aad bay u yarayd wax kalena lagama cabanaynin waxa la lahaa iyadoo taariikhdeenii
halgankii SNM wixii ka dambeeyay dalka markii la soo galay iyo dawladdii dhisantay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ka madaxa lagu halqabsanayo ninka Axmed Maxamuud Siilaanyo waxa loo haystay oo beeshayadu raayigii ka qabtay wuxuu ahaa dawladdii Cabdiraxmaan Axmed Cali ninkii curyaamiyey ee mucaaradada horlag ku furay ee Cabdiraxmaan isagoo si fiican yeelay oo beesha reer abtiga qaybtii libaax ka siiyay dawladda haddana ugu bedelay mucaaradnimo ilaa uu ku burburiyey Cabdiraxmaan iyadoo waqtigiisii aanay gaadhin xukunkii laga qaaday xaqiiqatan reerku Axmed Maxamuud Siilaanyo arinta eed weyn bay ka saarayaan inuu isagu ka mas'uul yahay bayna aaminsanaayeen waqtiga markaa lama murmin waxaan waayay bal haday sidaa tahay wax badan Siilaanyo ku canaanaysan wuxuu sameeyay waxaan aanu sameeyay way jiraan laakiin mid inoo kala doora maculaad baynu ku jiraa oo dadka walaalaheena ee aynu deegaanka wadanahay kala guursano xididka iyo abtiga iyo abtigaba aynu ku leenahay weligeyn baynu sidaa u culaadinaa mise waxa weynu meel baynu iska dhignaayo horeynu u maraayo sheekada waynu iska laabnaa oo taariikh baynu Soomaaliyeed weligeedba way isku yareeyay jiro weligeed waa la yaro culoobi jiray haddana waa la heshiin jiray waanu sheegay waxaan aniga shakhsiyan aniga iyo family-ga waqtigii igu xumaabaan isleeyahay waxa waqtigii dagaalka sokeeye ee beeshayda iyo beesha iyo reer abtigay ay isdileen waxay ahayd maradaadu kugu gubatay bay ahayd labadii dhinacba waad ka xanuunsanaysaa waanu sheegay waxaan xusuustaa habar yarahay أنا أدو جعلها وهو يدايو قف وينا قريقو يمين شريسي وحنا عنيان هو يدا أنا قيد شيء إنه حنت لك اللي دومي شري حنت لك اللي دومي شري وأنا موضوع عايزكي إلى إن شري أنا نادتك إسكوري سجرين جاب كاسنا دحمري واقع أنا وحن قوستي وحلاليو هاي كوسكريسي وحن سياسة أسوأ قالينا وحاهد عداود السداسي إناني أنا مرتب بينو قدعين كل ميانا وحا قوينان أسوأ قالي وحا ويان وحاهد هدي كل ميان لقد دريمو أما درين غير كاسي كل ميان عداود بيو هيانو عداود قبيلية أودت باني وقفوتينين وقعدينين waxaan isii cadaawadaas way sii turkaysaa ayuuna weligeed soo dabargoy mayso anigoo taag ka duulaya siyaasadda sidaas in labada reer la isu keeno in badan baan ka shaqeeyay dad badan baan reerkayga la galay 2005kii electionkii doorashadii dhacday baarlamaanka waa ka qayb galay inkasta aanan soo bixin ilaahay ma haddii laakiinse dad badan oo beeshaydaaba ay taageeray oo kulmiye oo codeeyey waxaana beeshayda saddexdii nin iska sharaxay anaa ugu cod badnaa codkaygu labadii kaloo la isku daraba wuu ka badnaa wata markaa halkaa gidaar baan ku jabiyey beeshaydii iyo kulmiye waanu isu keenay intii ka dambaysana halgagaasun baan ku jiray waa lagu soo biiriyey beeshu way ku soo biirtay doorashadii ku dambaysay 2010 tuulo kasta uu reerku dego annagoo haddale iyadoo beeshu u haysata inay leedahay qayb libaax ku leedahay dawladdii udub oo wasiir maaliyuhu yahay nin beesha ka tirsan laba DG la leeyahay intaas waa hay'ado aanu ka madaxnahay intaas oo shaqaalo sarsare la leeyahay haddana tuulo kasta oo reerku degay haddaad eegtid majority-ga waxa ay kulmiye beesha qaybta iyada bariga degan ee sanaag deganina sidee u dhan tahay xisbi kale oo ka helay hal codi ma jiro markaa waxaanu soo haysanay inaynu codka cod weyn ka geysanay rag badan oo beesha ka mid oo dee halyeeyaa ay ka mid yihiin Dr. Gaboose Soodani Cadaani anigoo 8 sanadood soo shaqeynayna si fiican bay arrinta guusha uga shaqeeyeen
qayb weyn bay ka qaateen xag dhaqaale waxaan u haysanaa anagu inaanu nahay beelaha tirada yar ee aan xisbiga iyo maxamuud axmed siilaayo weydiisanin dhaqaale aanu ku ololeynee annagu kaayagii la nimi isagana wax ku taray baanu haystaa marka beeshu iyadoo sidaasoo dhan soo gashay oo de halgankaa soo gashay oo cadaawaddii hore meeshii jirtay meel iska dhigtay oo walaaltinimo keentay maxaa dhacay markii axmed maxamuud siilaanyo meeshii qabsaday ee dawladdii cusuba dhisantay waxa dhacay waxa weeyaan nin allaaliya ninkii beeshaa ka mid ahaa ee jegahayey jagadii waa laga qaaday 9 mas-uuloo sarsare oo dhiijiyaal ku jiraan oo qolada hay-ad ku jira hay-ada haystaa ku jiraan qaarar airportka madaxii ku jiraan intaba nin walba gooni baa loo khaarijiyey qisooyinkan yaryare marmar aan la yaabo wasiirka duulista iyo hawada maxamuud xaashi baan maalin anoo ka yaro cabanaya baan waxaan ku yidhi war maxamuud daweydinkano safety baana wada mariseene bal inan baa joogtay airportkee bal inantaasuun yaa noogo maalintaan sidaa kula hadlay khamiis bay ahayd sabtidii buu inantii soo khaarijiyey anigii baa gilti noqdo waxaan is idhi haddaanad u sheegi lahayd aanad xusuusin lahaydba inantu jegadeeda malaa way iska haysan lahayd horta tareerka ku dhacday taasay ahayd anigu axmed maxamuud siilaanyo waanu tegey waanu sheegay waxaan idhi axmed waad garanaysaa adiga iyo beeshayda taariikhdii ka dhexaysay wanaaggii ay iminkaydi dhex mariyey siday kuugu dadaaleenna waad ka warhaysaa dee waxaan accident bay ku dhaceen oo way kaa hoostay mise ogaan baa loo sameeyey wuxuu igu yidhi maya anigu arrintaa maan ogeyn waxbaynu ka qabanaynaa aniga igu daa bal iga dhursug sidaasaan ku yidhi sidaasuu igu yidhi ballantaasuu i qaaday buuggan yare greenka wax ku qorqoro kaasuu ku qortay oo de waxaan is idhi arrintaas natiija laga keenaya ereygaa markaa ku yidhi kabacdi malaa 2 ilaa 3 sarkaal oo beesha ka tirsan baa la khaarijiyey markaa hadalkayga wax allaaliyo wax laga soo qaaday ma jirto dawladdaa dhan waxa nagaga hadhsanaa siday u dhan tahay wasiirka doctor gaboose baa beesha kaga hadhsanaa isagana waagtii maalintii dhoweyta uu meesha ka baxay bal cajaa'ibkeeda qarankaa dhan maamulkiisii sare reerka wax allaaliyo wax kaga jiraay ma jiraan intaa nin ee axmed maxamuud siilaanyo uu meesha ka qaaday qof keliya ma kama magacaabin walaa waaxid rag iyo dumar qof keliya kama magacaabin dee reerku iyagoo taa ka damqanaya oo ka xun oo u haystaa si kayr caadiya in loola dhaqmay xolaadaanay filaynin lagu sameeyey su-aalo aada u adag baan markaan dee aan burco tegey iyo dabadaba layga soo weydiiyaa canaan dusha layga tuuraa la yidhaahdaa tanaad soo waday miyaananaan anagu kuu sheegin aananaan ku odhanin axmed maxamuud siilaanyo colaadun baad kala kulmaysaa arrimaha markaan aanu sidaa uga hadlaynay inaanu habrawadaagna aanu hooyooyinka iyo walaalo yihiin baanu sheekaysanay wuxuu iga sheekeeyey qiso ku saabsan faamiliga iyaga ku dhacday adigoo iga raaleeyahay qisadaa waa idin yaro xusuusinaya halkale ayla marayaan idiin sheegayaa aniga hooyadee kaa xidig faarax awowgeed xidig faarax wuxuu lahaa adeer la yidhaahdo curunsay wuxuu la socday ninka maxamed cabdulxasan saciid maxamed dagaalyahanadiisii buu ku jiray nin aada u dagaalyahana buu ahaa oo qiimo leh maalintii dambe curunsay u yeedho maxamed cabdulxasan u yeedho wuxuu yidhi curunsayow waan ogahay inaad aada igu dagaalantid laakiin cid reerkiinii meesha joogtaay ma jirte orodoo rag doon raggii buu doonay reerkiisii buu ku dhex dhacay
waa la diiday aakhirkii wuxuu wadaba 13 nin buu soo helay 13kii buu la yimi xaruntii maxamed cabdulla xasan muxuu sameeyey wuxuu yidhi 13 badila curunsayna ugu horreysiiya laakiin curunsay hadilinee saanta ka saara waxay yidhahdeen nin cabdulqaadirow axmed maxamuud jiilaayo markaad la soo halgantay tolkaa taasuu ku sameeyeyo meeshii wuu ka wada khaarijiyey adigana waa kuugu horreysiiyey waxaan leeyahay haddaba kusoo gabagabaynaya innagu dhaqan baynu leenahay wax kaloo kale waa laga heshiin karaa laakiinse colaad qabiilo way farahay ka bixi kartaa meel xun bay gaadhi kartaa mucaaradana loo baahnayn bay keeni kartaa rabshad bay abuuri kartaa beelaha kale ay saamayn kartaa somaliland oo maanta u baahan inay isku duubnaato oo cadowga ku xeeran meel uga hor timaado inaynu inagu khilaaf sidaasi ina dhex yimaado uma baahnin marka waxaan ku talin lahaa axmed maxamuud jiilaani aan ka codsanaya adigaa maanta mindida daabkeedii haya reerkuna adigay wax kaa tabanayaan waxa ay kaa tabanayaan anigu 8 sanadood aynu kala wada shaqaynayna aan ku taageersanaa weligay arrin reereed kaala maxdal weligay qabiilo kulama soo qaadin weligay kuma odhan beesheeda waxsi weligay kursi kuma weydiinin weligay kuma odhan central committee ku soo dar weligay lacag soo sii kuma odhanin bilaa shuruud baan kugu taageeri jiray bilaa shuruud baan kugu taageeri jiray haddaba reerkii taasay tabanayaane madaxweyne si degdeg ah oo dhaqso ah arrintaa ha dhayaalsanin wax ka qabo maalintii aanan horaan kula hadlay intii aan kula hadlay waxba waad ka soo qaadi weyday maanta waxay ugu kaliftay inaan warbaahinta kaala hadlo ninkii jira wuxuu yidhi allahuma ballaqtu sidaa iyo maca salaama haddii aan bulshada somalilandna leeyahay waxaan leeyahay walaalayaal waanigii idii sheegay waa markii ugu horreysay aan sidaa u hadlo weligay arrin qabiile idinkamaan hadlin weligay arrin beelad idinkalamaan hadlin waxa igu kalifay waa sidaan idii sheegay waxaan isleeyahay wax ku wanaaji oo khatar inagu soo socota ama bele inagu soo socota ku baaji idinkana waxaan doonayaa inaad taa igu taageertaan wax kalena idi weydiisan maayo waxaan idin leeyahay beeshu waxay xaq u lahayd waynu garanaynaaye in la siiyo anigu melihi cid waxa laga qaado cid la dulmo melihi waxay xaq u lahayd ilaa waa muwaadiniin dalka ka tirsan cidna midkaa ka baryi maayaane inay la siiyo intaasaan idinku weydiin inay intaa igu taageertaan baan doonaya أدو ما صنتي قدومية خلوا علاش قلنا مساعسلاتي قبوس مركي مساعسلية يا وزير كلا وباشا هنا مع كلا ما مقعد وقال لي مساعسلاتي قبوسنا ولا يستربى ضنو العين الدولة أي كقتل يدو مركا ملوقع مركا هذا الكاجين كان إن دولة لفتي جاي وكلا في الفيستيشنو معناها فرق المعاملة باشا أنا كم يقولها وزير ده الوراد والله هذا القصة قصة نجياب نجياب السي بين نقطتين ده الشيء كذا وين وضع مغلق وحكذا بي قرن معيو لكن هذا ميت بيس كتيرته والنصيب دراعة ما ها أنا جو عن dowladda xumaan ku sheegaynin niyow dowladdii hore udub dowlad ahaan annagaa ka wanaagsan nin iyo nin haddii aad qiimaysid nooma dhigmaan laakiin mid bay nagu dhaameen dowladdooda waxay ahayd tiim wada socda oo kubadda dhinacooda eryaya oo sirtooda ilaashadaa oo istaageeraa oo aan ismanjaxaabin marmarka qaarkood iyagoo iga raale ah waxaan odhan jiray oo xisaabad wada socoto weeyaan baan odhan jiray niyo annaga taa ma lihiin dowladda iyadii saani uma wada shaqayso team work male dhinac ma wada socoto way iskala xulufaysataa koox bay noqotay dee
taasi dowladnimo sidaa kuma shaqayso dowladnimo sidaa kuma shaqayso marka waa runtaa xulafaysigaasi wuu jiraa xangaruufo yaroo dowladda ka dhaxaysa iyo madaxtooyada taallaa way jirtaa taa waxaan leeyahay haddaan waxba laga qabanin wixii kale la is yidhaahdo qabtaba dee waxay noqonayaan khasaare aada maasanta waxaa lahaa maalmihii ugu dambeeyey cabdiraxmaan cabdiqaadir kale jigada wasaaradda arrimaha guud u socdo kale iyadoo laleeyahay kaamil badbashay arrimaha maxaad laga sheegi kartaa taa runtaa kaaga sheegaya ma markii horeanu meesha qabsanay waagii horeanu meesha qabsanay aad iyo aad baanu doonayay inuu wasiir noqdo weliba wasaaradahoo dhan ma wada doonaynine 3 wasaaradood baan islaa waad qaban karaysaa anigu maaliyadna ma doonaynin daakhiliyadna ma doonaynin waxaan islahaa macdantii biyaha waad qaban karaysaa balaaninka waad qaban karaysaa inkastoon ogaa maxamed cabdullaahi in loo waday khaarijiga laakiin taasi hadday igu soo baxsatana waan qaban lahaa oo marmarka qaarkood waxa la hadal hayay maxamed xaashi iyo qoladan qaran lama filaynine maxamed cabdullaahi baa maaliyadda la geynayaa khaarijiyaddu way banaanaanaysaa marka waagaa aad baanu doonayay laakiin markii dambe kumaan guulaysanin madaxweynuhu si kaloo wuxuu arkay waan ka gaabsaday aad iyo aad baan uga gaabsaday wasiirnimo dambe meel baan iska dhigay waxaan go-aansaday inaan bal haddaan heli karo waxaa wax ka weyn inan bulshada soomaaliyeed weydiisto maalintii dhaweyta haddaba jeegadaas banaanaatay xusbiga waanu ku shiray guddoomiyaha muuse bixi ilaahay hadaayo waanu is aragnay cabdiraxmaan taliya waanu is aragnay xog hayaha waanu is aragnay niman kaloo akhyaaro guddida filinta kulmiyaha waanu is aragnay waxay ku adkaysteen meesha inad gasho waa loo baahan yahay nadoole waxbaad ka qabanaysaa laakiinse xisbigay ku nusqaan tahay haddii aad meeshaa gelin weydo ma qaadi karo ceebta odhanaysaa xusbigii mar labaadna waa laga tegey guddoomiye muuse arrintaa wuu ka ololeeyey si adagna wuu uga ololeeyey xagga beesha markaan eego waanu kulanay kaah baanu isugu tagnay shir baanu qabanay shirkaa waxaa joogay wasaarada 3 wasiiree beesha ka tirsanee cabdi aldaahir cabdullaahi geeljire bashiir xariir intuba way joogeen xildhibaanada beeshu way joogeen waxa waabeeyaa joogay duur baa joogay iyo xildhibaano kale iyo niman kaloo akhyaaroo beesha ka tirsaday waanu isweydiinay waxaan ku yidhi anigu dooni maayo markii horaan dooniyey iminka dooni maayo baan ku yidhi waxay yidhaah laakiinse waxaan ku daray waxaa ku talisaan baan yeelayaa xisbigana talaan ka hayaa kulmiyana talaan ka hayaa idinku waxaa ku talisaan baan yeelayaa ninkii ugu horreeyey ee talada keena waxaa xildhibaan duur bukhaari baa ku xigay xildhibaan bukhaari baa ku xigay raggii kaloo dambe badanaana way uga dambeeyeen waxay ku adkaysteen illa waa inaad meesha adigu gashaa lagaaga maarmi maayo waa xaq baad u leedahay waad u soo halgantay dhabarkaad uga soo jabtay waxay snmta odhan jirtay kaadidaydan isu cabe waa ku kaa marka waad xaq baad u leedahay lagaana maarmayo gal bay yidhaahdeen de haddaad sidaa ku taliseen baan idhi dee anigu wallahi madaxtooyada khayr badan kuma ogiye idinku haddaad tegaysaan oo kasoo dhammaynaysaan dee idinkay idi jirtaa way u tageen sidii niman odayaala oo badan oo kale oo sultaan barriya ka mid yihiin cabdullaahi carab ka mid yihiin iyagoo intaaba wata way u tageen madaxweynaha way arkeen si toosay ugu tageen way u sheegeen waxay yidhahdeen ninka ilobila waa inaad meel siisaa rag badan oo dambe oo kale way u tageen reer abtigay ilaahay hadaaye had iyo goor way u ololeeyaan oo waa u sheegaan oo waa i taageeraan laakiinse madaxweynuhu ka gaabsaday arrintaa bilxaqiiqatan anigu iska garanayey aniga siilaanya way isnaqaanaa siduu dhaqmana waa aqaanaa fikirkiisana meel weyn baan ka akhristaa waan garanayay inaanu siinaynin kumana hawlaysnayn umana tegin mana weydiisan madaxtooyadana kama ag wareegin nimankaasaan ku shirfiyo waxaan idhi hadday dee wax ka keenayaan dee iyagay u taallaa laakiinse maan filaynin waxaanan filaynin anigu inagoo
xisbiyaal oo dimuqraadiyad sheegana haddana in maariyaal waynu iska garanaynaayo siyaasadeennu way iska beelaysan tahay waa marxaladaynu marayno aynu isleenahay haddii aynu waqti hala weydi ka gudbi doontaan weliba xusbiga kulmiye xusbiyada ugu xagga beelaysiga ugu kulkulul buu ahaayo had iyo goor beelun baa wax lagu qaybsan jiray wax kasta samaynayo midkaa ka dabaalan kari weynay marka anigu waan hubay anigu inaanan wasaarad ka helinin aniga laga magacaabayn laakiin waxaa islahaa dee ragga kale badan ee beesha ee jooga dee baa nin laga siinaya marka sidaa ay dee beeshayda dhan waqcad ugu noqotay inbay aniga waqcadii ugu noqotay in dee la dhaafiyo cid kale la magacaabo ugu dambeyntii ولدي حسبي كل يوم كم تيم نزولته كل سلسلة بدك حسبي ديني هداد وسير دونين ترون حدث على لي مشرح مدحين يدون سنة إن هذا هرتا سياسة أنا قوم بدن بنقول أنا أقول إن يرولي جامعة كشرة بانكلاي وأنا سكوف أنا يا هذا هرو مخشين يكتل قاتا أو حيالا نلاش إذا ما كان تبوا عن كفانه waxaan ahaa anigu asaasiyiintii xisbigii SNM Somali National Movement baan ahaa door weyn ka ciyaaray oo ku faanaa ilaa waqtiga keliyaan siyaasadda ka gaabsaday aan waxba ku darsanin waxay ahayd waqtigii dagaalkiisa ku socday beesheedana ma raacin reer abtigeena ma raacin cidna ma raacin waan ka yaayaqsado meel baan iska fadhiistay canaan badan inuu igu soo gaadhay intii kale maalintii markaa xusbiyada lagu dhawaaqay horaan dee qalinkayga ka soo qaatay kulmiye dee raggii ugu horreeyey ku biiray ee qurbaa joogay baan ahaa intaaba siyaasadda waan kusoo jiray laakiinse nasiib xumo marka anigu waxaan siyaasadda ka doonayey shaksiyan maaha shaksiyan kursi ama waa la helaa ama waa la waayaa haddaad cod ku leedahay maaha taas important waxa importantku wax weyn himiladii aad lahayd in dalkaagu horu maro in musuqmaasuqa ka baaba'o in shicbigaagu in qabyaaladu yaraato in tacliin la helo in horumar dalku sameeyo in dawlad wanaagsan oo haddii abadkeeda leeyahay ummadda u damqanaysaa ku timaado waxyaalahaasaan ka doonayay had iyo goor laakiinse disappointment waxa igaga dhacaa anigu runtaan iska sheegaya dawladdan maanta joogta anigu waan taageersanahay waana taageersanaanaya marra mucaarid ku noqon maayo laakiinse runtaa sheegaya halkaan ka filayey iyo himiladaan u lahaa midna mayan buuxin waxaan markan goostay inaanan cid dambe u daba fadhiisanin ee himilooyinka aan leeyahay waxa aan doonayo bal anigu inaan ka mida dhalin karo aan sameeyo marka anigu sanadkaa wixii ka dambeeya wax aan ahayn kursiga ugu sareeya doonan maayo haddii ilaahay la qabto oo bulshadeenu igu taageertana ahlan wa sahlan haddii aan ku guulaysan waayena waa iska nasanaya alxamdulillahi baarik baan iska taaganahay wax iga xunu ma jiro dhaqaale wanaagsan baan haystaa reer wanaagsan baan ka dhashay xaas wanaagsan oon habi ku ahay baan leeyahay caruur waan adeeruhu wanaagsan baan hayaa waxaan u baahanahay maanta ma jiro halkaa waxaan ugu jiray wuxuu wanaaji baan ugu jiray haddii aan taasi sanadka ay suurtageli weydo waan iska ritaayaraya gurigayga wanaagsan soo ma aragtaan ee baxadda weyn leh kaasaan iska dhex fadhiyayaa buugaygana waa iska akhriyeenaya jaamacadaha Somalilandna waxbaan ka dhigi doonaa khusuusan taa saaxiibkay Saciid Axmed Xasan haye college taasaan wax ka dhigi doonaa waxba iga maqani ma jiro